madaxweynaha dalka Masar oo hadda ah gudoomiyaha midowga Afrika ee sanadkan ayaa kulan dhexdhexaadina isugu keenay madaxweynayasha dalalka Kenya iyo Somalia oo xiisad diblomaasiyadeed oo dacwad ku saabsan xuduudda badda ay u dhaxayso. Wadahadalladan sadax geesodka ah ee magaalada New York ay ku yeesheen madaxweynayasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Kenya Uhuru Kenyata iyo Masar Cabdilfataax al-Siisi ayay shaacisay madaxtooyada Soomaaliya inay ku dhamaadeen isfahan, iyadoo la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka. Waxaa kaloo lagu heshiiyey in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban Soomaaliya iyo Kenya oo ka shaqeynaya kamira dhalinta is-afgaradka la sheegay in la gaaray, laakiin madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku adkaysatay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamada cadaaladda adduunka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar Cabdilfataax al-Siisi doorka hogaamineed ee uu ka qaatay wadahadalladan oo bilow fiican u ah isu soo dhowaanshaha labada dal. Waanwaanta Masar ee ka dhex samaysay madaxda labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka mid ah dadaalka uu waday ururka midowga Afrika, kaas oo ujeedkiisu uu ahaa in markaasi dacwadda xuduudda badda ee Kenya ay sheeganayso laga soo celiyo maxkamada adduunka ee ICJ. waxaana cad in arintaas laga wada hadlay iyadoo war laga sugayo dhinacyada Kenya iyo Masar. Maxamed Cabdi Xasan, Dalsan TV, Muqdisho.